وزيرده ورالك عبد الرحمن عين وزير هره هذا القدومية حق صار أنت أمرك اللي جاي مع دورتك هو إذا هلا يعذر داره قذال أيا كي ماضي وحيجه هالرأي ما قرر أي مركه إن يراك هوبا أو لبض دقيقة ضوضة وحا كشكينا يا ورالك مختار مرك اللي جاي مع اللي مذي ذي وحن السنة هاي وحن قراءة وهاي nin aad wax u bartay muxtarim ah walaal qiimo badan laakiin dadkeena hadda joogay Soomaalidu hal doorkooda ma jeclo la dagaalamaan halkan ana fadhiyo New Zealand dhigta wax soo saar wax igu kursigiisa ku fadhiyo oo ku faraxsanay haybadaadi iyo shakhsiyadaada in laba daqiiqad gudahood lagu qiimeeyo walaal hore u soco muxtar ma habuugiisi koowaad hore madax hore ka soo qoray وكم إذا مدحوينه هو جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو حسن رئيس وزراء هو حسن علي خيرات كم إذا سن نصيب لبضاس مدحومي سن هيلين لكن عاو أمة الصومالية با نصيب حوها لان بوق دبلوماسية كهالله حقيقة مرك لقى الله يو هل بن عبد الرحمن كسمنا يتكلمنا وحوها وكسر شيء ذا بروبلم يسكدول النمذجنا استوى كم إذا nin ay tii bartaa wasaaradda caafimaadka la geynay kii caafimaadka bartay ba xanaad xoolaha la geynay waqtigii siyaad barre dawladda siyaad barre baa waxa dhacday laba wasiir baa ku jiray labada wasiir kii caafimaadka bartay waxa la geeyay xanaanada xoolaha kii xanaanada xoolaha bartayna waxa la geeyay kii caafimaadka mar labaad baa sanadkii maal dhow hadana ka dhacday xukuumadda وقرودك كي هاي الوزارة حمزة عبد البرة لبا شخصي واحد شراء بدنا عافمات كي برتي حنان حوله لقي كي عافمات كبرتينا حنان حوله لقي وحوين دولة نمذو إن وحنا سو شيء معارض نما ما وسحتان وح معارض نما ذا لا هذاي أنا قمر كان نور حوجا يرفان كورير كيجي ما كشنا يا عين تاجل شوقي أنا قوي مركان شوقنا markaan wax mucaaradayno waxaan mucaaradnaa turaalo dalka loo turaayo laakiin koonfur baan ugu imanaya dad aan u tureenin dalkii dadka oo ilga ugu dambeeya ka hadlay diblomaasiyaddu waa wax weyn siyaasiga especially wasaaradda arrimaha dibadda hadda Muuse ka shaqeyn muxtaar inuu xoriyo oo fadhiisto oo haykalkiisa keeno wax sahlan ma maalin kasta waxa la keenayaa safiir baa la keenayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa laga yaabaa inuu askari ahaa وزارة مدول دول ودي تتنوع كم ما تودنا كتاجنا وهلا يوم هنا الدبلوماسية قاب كي دول لماذا دونك مركز تيجي سقاب كذا وتشاي سقاب كذا هلا سقاب كذا حكته وكالقاعدة نيسان والسيدي المودد هنا البكارة شفت الله إذا يمر محاد هاي صح الدبلوماسية وح سهلا معها مختار أقاني علبة دوس وكرديسي لكن إلى هي هنجرسي بوجا القرطي كوي جرات كوجو قاعدة وأنفعه أنت أمرك لقي ما دمختار وكوهم بليانية وحنو كل شيء يقوله واوي إن يرى سياسة ده نحكيشنا يا إن عبد الرحمن عينته وزير كي ولالكي وحوي أنا ودك السياسة هان أكو احترام عيو مدام ما نيجي هذا بردوي ده سوق علي لكن وين أنا دك يجو الرئيس سياسة دياركتو ده أكو احترامه بيدوي دك أبسط كأه معارض كان ولي منك حناقي منك فوقاني وحنا مسنا هاي دوضها بدنا اللي نحكي له إنه وحكي صوب حياة عبد الرحمن أو ديجان هان نواد إيجا بدن تهاي حمر لكن دولة نمذا قاب كعاد وجهها يسانة معارض نمذا عاد كو صلاين يسان قاب صحة ما هنا نوام سنة هاي دولة نمذا وحوبا هنتهاي تناسل وحوبا هنتهاي ترالة وحوبا هنتهاي دنت جار كسياسي اللي هو الرئيسيو دنت أمضى وحكستو أمضى الصومالية هو يدا كبردا odayga dhalinyarada boqolkiiba 5 waa dhalinyaro hadii dagaal loo baahdo iyaga gala hadii la yiraahdo waxba la qabanaya iyaga gala ugu iyaga hadana ugu dulmiga ugu badan hadana iyaga ku dhaca sababta ma taqaana inagu maskaxdeena waa caafimaad qabta siyaasiga dana maalmo yar joogta ayaa danteena lagu fulinaya siyaasaddu waa qorisku dhiib dhaxal maaha أنا قلت حريبي كرا ما نقول كرا دحل سوقي
soomaaliduna waxay ku maahmaahdaa abahay baa geelle anaa dameer laa dhaanta nin walba wuxuu xaq u leeyahay inaad adiga keento inaad curiso aniga kursigayga qofkii igu horreeyay qof muxtaram u ahaa maxamed mir carte qaalib baa loola jiray DP prime minister buu soo maray aniga gobsanaa saaka ku fadhiya biri qof kale ku fadhiisanay macnaheedu ma markaa gobsan baa hayd sidaas waxa iga mudnaanaya hadba qofka iga dambeeyo siduu wax u qabto marka waxa weeyaan dalka ha loo turo mandate-kii taanu haysanana waxa weeyaan hana la ixtiraamo gilgilashada badan ha nagala daayo xisbiyada laga soo hadlay maalinta garaadaysta ilaa maanta deegaankayga xisbiyaan ku dhex jiray asxaabta marka laga dhaxay ama adduunka oo kale markaynu joogno xisbiyada iyo shakhsiyaadka ka soo baxay maanta waxaa lagu oranayaa xisbiga dimuqraadiyadda ku jira xisbiga maxaygu ku jira macnihii ahamiyadda waxa la siyaasadda asxaabta la siiya marka in aynu doorasho cod qof aynu gaadhno inaynu fahanaa ka horeysa xisbiga muxuu yahay in dadka la wacyigelin hor istaagtaan war xisbiga muxuu yahay warsan uu yahay sana laga faa'iidaya qabiil anigu markaan ahay naag saaqa maanta lagu dhaho kursigaaga isaaq baad ugu fadhidaa waxaa ka jecel maanta inta halka kursiga la dhigo inaan Soomaali u soo baxo midba maalin garkay qabtay ku dhaado aniga ku doortay laana maanta marka guusha Soomaalida wada jeceshahay gobsan maanta marka la yiraahdo alxamdulillah xoogaa in deegaankayga marka laga yimaado jiqjiqsi difaaciisa haysto at least waxay dadku igu yiraahdaan qof dhalinyarada umadu istaagtaa tahay sababteedu waxa keenay waa idinka hadiidan idinku aydan aniga macnaheey sameeynin anigu macna ma yeesheen marka waxa weeyaan qolooyinkeena xisbiyada ugu horeeya aniga laftarkayga xisbiyadaas oo ka mid ahay waxaynu u baahanahay ummadda in la wacyi geliyo oo la dhex istaago xisbiga looga sheekeeyo doorasho qof laga hadlo oo la doorasho qof saadaad ka hebelada soo saaray Cabdiraxmaan Caytaada madaxweyne ka dhiganaya waa in uu ka koraa imika kale uu xasan sheekh madaxweyne ka koraa in la yiraahdo xasan sheekh maxamuud baarlama maalin kasta luqunta u istaaga ani hadda waxa isi weeyday ilaa ku dhaartay isbaarna ku dhiganay dawladnimadina waa in ka koraa waa in qofka shacabku yiraahdo aniga doortay ani hadii waxa la ii sameeyay waa ma soco karto laakiin aniga cod shacab baan ku fadhiyaa qabiil baan ku fadhiyaa laakiin codkayga shacabka qabiilkii war maanta gobsan baa qaylinaysa qabiilkeediiba بريك دي بدي لقفاه ما يساسنا كرك اللي جاكوا نحن نقوله بنقول تختخ بدت مركا أذيجا الشعب أذيجا الدلكن الدلكن له أذيجا مجورة أذيجا حاسل أذيجا عشور بحياة قف هذا أذيجا هربته أذيجا دوريسو تكون قناعسات هذا كيسو إنه دلكن بتبادي كرا دارا أنتم ما عندي تكونوا هرسين مكيف كانوا كشرنا أنا يدو الله ما دانا سونا كلا حدا dalkeena haloo duceeyaa ilaahay khayr oo noogu dhigo maalin meel fiican baan soo marayna inteena sinay nabad ku wada midna guriga nabad aan ku wada tagayno ilaahay marka laga imaado rag bixiniyooda aan ku joognaan ku jiifnaa marka bukul ixtiraam amniga yaa la siyaasadeen ciidanka xoogga dalka aynu ixtiraamno keena dhulka iyo dadka inoo hagaajiyayna aynu barbarkiisa taagnaan inaan caqabad socotayna noqonin Cabdiraxmaan Caynto seminaaradiisana aad baan uga warhaynay maadaama khibrad ahaan iyo aqoon ahaan buu dheeri aad ma mahadsantahay